آيات قرآن ولو أخرين دونه عطر فرح
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Précipiter l'évolution alors irréversible, la France réunissait une table ronde à Paris le 28 février 1977 afin que les protagonistes de l'intérieur comme de l'extérieur puissent se prononcer sur les modalités de l'association à l'indépendance. Patronnée par l'OUA, la seconde table ronde tenue à Accra du 28 mars au 1er avril permettait aux diverses formations politiques de dégager un consensus et de préparer le prochain référendum. L'aval africain obtenu, c'est au tour des membres de la Ligue arabe de garantir l'indépendance du futur État. La France confirma la date du 27 juin 1977 pour célébrer la naissance de la République de Djibouti. État souverain dans ses frontières coloniales, il entrait à l'ONU et à l'OUA et trouvait sa place dans la Ligue arabe. Héritier d'atouts et d'handicaps structurels, le jeune État se devait de relever plusieurs défis. Renforcer ses activités commerciales, innover dans le domaine industriel, former ses élites, maintenir son unité et forger la nation djiboutienne. À l'indépendance en juin 1977, la République de Djibouti a adopté plusieurs modèles de développement économique et social. Ainsi, il est à noter que ces stratégies ou modèles de développement sont coiffés par une politique internationale active. L'adoption de plusieurs traités et conventions internationales a apporté une visibilité internationale à la politique intérieure. Il nous est impossible d'évoquer l'histoire de notre jeune République sans évoquer, entre autres, nos leaders politiques qui ont marqué de leur combat les archives de notre pays. Feu M. Ahmed Dini, Allah yarhamou. Feu Mahmoud Harbi, Allah yarhamou. Feu Hassan Gouled, Allah yarhamou. Et M. Barkat Gourrat Hamadou. Je vous souhaite une excellente soirée de la fête d'indépendance. Bonne fête. Vive notre pays, la République de Djibouti, notre mère patrie. Vive le peuple djiboutien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bismillahirrahmanirrahim. wax ka soo la bilaabayo bisinka u horeeya caawa waa habeen 40 sano laga joogo markuu dalkeenu qaatay xorriyadiisa gobonnimo haddaad eryada af Soomaaliga aad ku macnayso waxa ka dhigan tahay yaani dad gob bay ka imataa gobonnimo wax sida la isku siiyay maaha waxa uu dhintay haliye badan baa uu dhintay taariikhda waa la soo akhriyay ku noqon mayno balse gabayada aan nii qaadi doono ayaa ku saabsan hordhac baan markaa nii sameynaya saad u fahantiin waxa ka xumay inaan afafka wadaniga kamida aan ku macnayn karin raali baad iga hanaysiin gabaygan u horeeya waxa la dhahaa calanku waa kanan dhabarkayga saaran hadda horta intaan taa u gelin waxaan salaamayaa santineelka qaranka safiirka dhulkeena u jooga Euroobada Benelux Sayid Umar Siyaad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaanta kadib safiirka waxaan salaamayaa ummadda reer Djibouti inta af Soomaaliga ku hadasha iyo inta af Afarta ku hadasha iyo inta af Carabiga ku hadasha oo ah calaamad dalkeena intaasoo dhan waxa uu ka ah hiiliyaha koobaad haybadle Ismaaciil Umar madaxweynaha dalkeena waxaan ku xigsiinayaa
ciidamada qalabka sida haliyada qalabka sida ee heeganka waa difaaca dalkeena dumeero iyo daan kastoo adduunka ay ka joogaanba hambalyo ayaan leenahay hareertiinaan jirnaa hoggaan ila jeefsannaa hadda waxaan ini qaadayaa gabayga la dhaahdo calanku waa kanan dhabarka saaran bal waa idiin macnaynayaa calankeenu midabada uu ka kooban yahay iyo qiimaha uu leeyahay waxaa lagu xantaa reer Jabuuti fulaxantii ma moogaa leeyahay reer Jabuuti suugaanta iskuma fiicnaa leeyahay hodhow adeera muxuu lahaa intaad odhan lahaydeen waa niin macnaynayaa calankeenu haybadaha uu ka kooban yahay ayaa kamid ah gabayga la nii qaadayo ka kalena gobonimadu ka hadli doona waa niin macnaynay hoyaalay cirka sare ilaahi dhisayay ciidiba taageerin caradana ballaashay ku xidhay badaha ceegaaran camow cadankeennii allaha ciidda ka cantoobay ee calafkiisii xaawana ka jaray curuuqda fedhisoy aroos maryan oo galiin allaha ciise ku dhex beeray ee caynkii uu doonaba allaha camal awoodaya cuduud iyo lixad caalimkay cidi la sormayno عدنكيو مدو دولدها عالم كان يجوغا علاماتها لوكلا غرتا عليا وياني عسيس كان مدكونو علفي عيدنا وتاغن عوادي سغودي انو عاوا كوبينين علمي وكو جوغا بولشويني عبيريا عريف سريعركو عالحين علن كان عدمودد عصاقيل إيو علي سبيح بورهي عدلو عكاريو عصامو عرداي عوسكي دوغيستي عليمه عقار أباحيهين علن كان عدمودد عسان ديق عبرايو عدان نباد عبسونين عيلتري عيار لغو مهلين علن كان dadkeenu mariyo diriir culayskeede anugiyo cirolaba hadan cidhiifka soo jeesan oo curadiyo hadan cuudu hurun calankan awgiisa ee cadawihii digoleeyay daraadna maciisayene عادلكي هكا ديغو ميدكيان علايس غادين عسيس وحنبرينا إناد مالين عيلونين عيركا ساريكا موغو مرقورا عيدا سوتابن اي عمريغا كجوغي اي عرادا عانا لغو مالو على يهو عبارة كتال عاشق نقو بيري عداني يوم ذو عدو مذكي عملك السوقادو عراد إن حيبتا نكي سعولا ديستا عربس عيدا لديق إيو عدود لحاد كيغا وعبسي لغا سفيا درتالو على مديو عسيس بانكو دارتي سنبو على لندوني عسيس وحام برينا إناد مالين عيلونين عادلك ياكا ديغو مذكيان علايس غادين عركا ساريكا مبوغو مرقونا عيدا سوتابن عمريغا كجوغي عرادا عانا لغو مالو عمريغا كجوغي عرادا عانا لغو مالو كاسوا علنكا ku yaro kooban ayaan isaga nigu xigsiinaya kulli mikrofoonka waa la sugayaa mikrofoonka warbaalkan waa baa codkiisu ma gogoaya ya codku gogoaya fleera hada
hadda kan kale indii qaadana wuxuu ka hadlayaa go'aanimadii iyo sidii ahayd waqtigii xaaladda dalkeenu gumaysiga lagu jiray sidii dadkii go'aanimada soo hooyay ay u noolaayeen markaa bal yar dhageysta isagana kulay waxbaad ka fahmi doontiin haddii kale waan macallin doonaa hoyaalay 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 hoye oo hoyaalay 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 hoye guuxiyo buuranbuurka iyo dhaanta iyo heeso geeraarka goob lagu tartamay guusha lagu sheegtay oo guud ahaanba geedkii murtida gabaygu wayanay godaalolada laga jira waa gadoomaye garaad iyo caqla lagu dhisaa garaasho waa deeqe gobonimo midkii loo tirshaa gabay horseedkiiye geedla midihii waa kanan hubaalni gudbinayaye gadaraaca taariikhdu waa lagama guurane gumaysigu gefkunaga galaan gabay ku koobayne guyaal boqolka guud maray wuxuu garab ku haystaaba gorofkeega caanaha wuxuu gooni nuugaaba geeyi lagu haraaday wuxuu galaal dabashaba oo geesigii ka dhiidhiya wuxuu gaalku toogtabo gidaar miina lagu xidhay waxay nagu goodooshaanba gumaadkii digooliyo markay godoobtii dheeraatay guuraha habeennimo hadday geesiyaal duurin gidaarkii faransiis dhisay guudka laga boodin gabdhihiyo rageennaba haddaan gaabsan maraadeenna gaajiyo haraadkii haddaan giijin sunkeenna geeriduu xaqbay noqotayee gumuucu baadheedhin oo guudaha iyo dibaddaba haddaan guluuf dagaal qaadin gees dirta joorri iyo ubuq guniya barxeebtu oo gacan qudha hadday noqoninoon gudunta soofaysan guulaan ku dhaartayee xorriyaad gelma mallenay gobanimadu waa geel dhalayood goroofku maashaye gefka laga ilaalshaa xumaan gudhini naaskiye gacma wada jiraa lagu godliyey keenna gaarkaahe guud caddee siyaasadda ku daray garaasho dheeraada garaadkiyo aqoontana raxmaan gooni ugu biirshay godka eebbaheen haw dhexdhigo gogol fardowsadey geeska afrikadoo ku jira xaalad lama garada guuleed wuxuu golaa nabdoonagu gardaadshaaba gumaysigu godku noo qoday maalintaan garanin intuu gunta dheeraa markii uu go'naga saaray oo gumuuciyo gantal maalintaan gelinay xeebteenna geesiyaal walaalaa wax badan godoob la'aan aasnay gablan maalintuu nagu dhacay ee gaagaxay qaranku gaacalkeennii kala tagay ragbaageed iskugu keeno lagaramo miteera ku yidhi goobtan annagaale geeyigeenna oo duma ragbaa guula kaga dhaartay guud ahaan afrikiyo oo amuur geeska lagu haynin guddi xeerka goyso gartiyo godobta faallaysa gadiidtiyo gadiidshay dhigeen gaaru leenahayo waa taanka gudubnay godkuu qoday miteeraye guduud low astanteenna qaran calankan guudkeenna
guyaal afartanaad gaadhaye guula mahadiisa godka geesiyadii kuu galay waayadii gulufka guulo waxaan baryaynaa dhammaan jannaaday gaadhaane guluuf iyo colaadaran rabbow geeska ka dhaafi geyigaad ku joogtana marnaba gaaja lagu seexan geyigaad ku joogtana marnaba gaaja lagu seexanoy geyigaad ku joogtana marnaba gaaja lagu seexan waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وانا هبين جول وانا هبين في عركه مركه عركه اللي تكون جميسه يس
السلام عليكم ورحمة الله. waxaan doonayaa inaan halkan laba kelmayo aan ka idhaaho oo idinku salaamo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa. waxaa ugu horreeya horta soo dhaweynaya ambassadorka Jabuuti Excellence Omar Said iyo staffka la shaqeeya iyo maanka reer Jabuuti oo dhan oo halkan jooga oo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu faraxdan sida u faraxdan tihiin idinkaa qayb galno. sanadkani wuxuu ku dhacay maalinkaa maanta waxa weeye 40 sannadood ay ka soo guurtay Jabuuti ee xorriyaddeedii ay la soo noqotay. markaas aad iyo aad ayaan u bogaadinaynaa dadka Jabuuti, dowladda Jabuuti iyo dadka Jabuutida. waxaanu ognahay dadka Jabuuti iyo dowladda Jabuutida aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. walaalayaal innaka inooga habsan tahay dariiqo yar waqtigii calanka la xuseeyey. waxaan ku qasbanahay inaan doorka gudoomiga idhaahdo xafladan caawa daraaddeed. waxaan horta nigu salaamayaa salaantii islaamka ahayd. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal dhammaantiin aabbo inamo hooyooyin hablo waana niigu mahadnaqayaa. anii shaksi ahaantayda waana niigu mahadnaqayaa. walaalayaal caawa waad ogtihiin waa habeen farxad leh. waa habeenkii aan ka xorownay guumaysi 100 sano iyo in ka badan dalkeenna dadkeenna carradeenna dhibaataynayay. dadaal juhdi adag baa loo galay. juhdigaas dad baa u geeriyooday, dad baa u naafoobay, dad baa u xoolo beelay, dad baa maanta ugu jira qabri. waxaan mudannahay inaan dadkaa xasuusanno oon daqiiqad u faataxayno oon u marno faataxada. intaa kadib faataxa ilaahay ha u naxariisto jannadiisa ka waraabiyo.
inteena nool la ilaahay oo daba naxariisto horumarka dalkeena iyo dadkeena iyo arrigeennaba aan maxay haydeen aan isku garab joogsayn waxaan u mahadnaqaynaa xaggaas waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle madaxweyne koowaad ee jamhuuriyadda jabuuti madam khadre maxamuud xayd dhammaan wax alla wixii arrinka maanta aan u fadhino hawl sheeda nibad darafkuu jooga ha joogee xusaya mudnaanna siiyey in calanka maanta sidii u habbooneed 40 sano kadib aan u xusno markaa walaalahayow waxaan hadal aniguuna dheeraynay saacaddaa soo dhow waxaan mar saddexaad haddana igu mahadnaqayaa sida fiican aad uga soo qayb gasheen xafladdan maanta intii qabanqaabisana mahad gaara yaan u celinayaa wayna gurigeedihiin sacabna way mutaysan raggaa si aan loo sacabiyo waxaan u deenayaa mikrofoonka adeetoole raggii maxaa la yidhaahdaa organisation baan u deenayaa aadee wax yaroo daqiiqa ah hadhay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu calankeenu ha jiro ha yimaado calankeenu ha jiro ha yimaado calankeenu ha jiro ha yimaado shicibka reer jabuuti ha noolaadaan shicibka reer jabuuti ha noolaadaan dowladda jamhuuriyadda jabuuti ha noolaado wax alla waxa walaalaheena maanta xafladana la soo qayb galana allah gajisaysiiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saacadii calankayga dawla sarakaca walaalayaal idinka magaalaya saacadii waxay gaadhay calankii aan maanta mataqaanaan xusayna weeyaan sare koobsadaan leenahay walaalayaal idinka magaalaya
I love you.
China.